bariga Itoobiya halka qoraxda iftiinka badani ka soo baxdo si diiran ugu fido dhul ballaaran oo hodan ah walaalka uu ku yaalo deegaanka Soomaalidu waa dhul isku darsaday bilic dabiici ah taariikh soo jireen ah iyo dad martisoor leh deegaanka Soomaalidu waxa uu kamid yahay deegaanada ugu ballaaran dalka Itoobiya wuxuu xuduud la leeyahay dalalka Soomaaliya Kenya iyo Djibouti taasoo ka dhigaysa deegaankan marin ganacsi iyo mid dalxiis inta badan cimiladiisu way diiran tahay dadkiisu waa kuwa soo dhaweyn iyo martisoorka Soomaaliyeed ee dahabka ah dhaqso aad uga helayso dhaqanka in la nooleeyo hidaha iyo maartay dhaqameedka dad macnaheedu dhaqankooda ku dhagan oo haysta oo nooleeyo oo muujiyana noqono dhul ballaaran oo la dheerah buraha wabiyo dooxooyin iyo banaanada cajaa'ibka ah ee ay ku dhex nool yihiin dad adag oo leh dhaqan soo jireena dhaqdana dunyada noocyada kala duwan leh waa deegaanka Soomaalida si aad wax uga barato dhulkeena iyo dalxiiskiisa ku soo dhawow documentarigan oo ku hogaaminaya safar dalxiis ah oo ku saabsan goobaha dabiiciga ah ee deegaankeena dalxiisku hadda wuxuu noqday ilaha ugu weyn ee dhaqaalaha adduunka isla markaana wadan ama deegaanba uu maarkaa ila dakhli ka heli karo taas markaa suura gelisay ama loo halbeeg looga dhigtaa in sanad kasta dalxiiska kaabayaashiisa dhaqaalaha waxyaabaha suura gelinaya in dalxiisku uu xoogaysto in xoog la saaro sian qayb ka mid ah goobaha dalxiiska ku habboon ee deegaanka Soomaalida aan ugu soo gudbino inta aan horay u arag ayaan aroor hore ka jarmaadnay caasimadda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga dhanka iyo gobolka Liban oo ka mid ah dhowr gobol oo aan socdaalka yagani ku marayno waxay ahayd maalmo wacan oo socdaalka yaga allan lagu saaciday in aan cagaha dhigano degmada Dhakaasuufti oo dhacda xuduudda gobolada Liban iyo Daawax ee deegaanka Soomaalida dhanka kalena xuduud la wadaagta deegaanka Oromiya waxa ay kulmisatay dhul buuraley ah wabiguna barbar socdo haddii aad u socoto quruxda dabiiciga ah buraha Gaaluun waa meel aan la iloobi karin burahan waxaa la sheegaa inay ku duwan yihiin sheekooyin qarsoon iyo xusuus taariikhi ah halkan ayaan ka bilownay barashada dalxiiska qayb ka mid ah gobolada deegaankeena waxaan hadda dul taaganahay bundada ku meel gaarka ah ee isku xidhaysa gobolada Liban iyo Daawa sida idin aragtaan halkan aan joogno waa webiga Daawa oo la soo leexiyay oo hoostayda halkan maraya birtan meel badan baan isku soo aragnay birtan oo waxay faafan ayaan isku aragnay ama idinku daawateen kadibna waan geybaan isugu nimidnay birtan shaqo adag bay qabatay runtii haddana waxaan joognaa waa tuulada waxaan joognaa hadda Gaaluun oo isku xiraysa ama webiga kala qaybiya gobolka Liban iyo gobolka Daawo iyo gobolka Liban waxa arinta cajiibkii waxa weeyaan sida aragtaan buuro ajaa'iba oo silsilada dheer ah oo ay yartahay dhulka Soomaalida in sidan oo kale laga soo helo ayaa ku wareegsan webigani iyo deegaankan burahan Gaaluun loo yaqaano waxa ay ka soo bilaabmaan dhul aad u fog oo ilaa iyo 100 kilomitir gudaha deegaanka Oromiya waxayna gaarayaan ilaa iyo xuduudda dalka aynu walaalanahay ee Soomaaliya Doolacado oo ay idinku arkaysaan afkeeda waa buro silsilada ah oo isku xiran ilaahayna waxa uu ag marinayaa oo uu ku manaystay qurux kale oo dheer oo ah webiga iyo biyahaasi qulqulaya ee Daawa waa heestii Xasan Aadan Samatar oo ku looqeyn jiray ahayd sida buuro dhaadheer webi baal marayo halkan oo kale baad ku arki kartaa sida meel barwaaqo oo buuro dhaadheer webi baal marayo barkana daruuru
kaga beegayno waxa weeye in aan soo bandhigno goobaha dalxiiska deegaanka uu leeyahay goobaha taarta qadiimiga ah ilaha dabiiciga ah ee dalxiiska iyo sidoo kale dhulka dabiiciga ah ama dhulka quruxda badan ee bilicda wanaagsan ee deegaankani uu leeyahay saad og tahay deegaankeena wuxuu leeyahay goobo joogooda sareeyo goobo joogooda hoose dhaxeeyo iyo goobo joogooda hooseeyo intuba waxay leeyihiin goobo ku habboon soo jiidashada iyo dalxiiska buurta waxaa ka soo bilaabataa salaqa dheeraan bay soo martaa dulo dheer bay soo martaa waa buuro eeldooray martaa tuweer bay martaa intaan raax xoolaa la yidhaha xagga intaan raax xoolaa la yidhaha taasna garasaa la yidhahdaa taas maagaa la yidhahdaa waa kaas waxay ku badaa gaalluuntaas ay mari gaalluuntaas farda waali ay mari halkaas xintay la ka dhacdaa meeshaas wixii xag ka jira annaga aalaa deegaan nooma ahayn ilaa halkii gaadha ilaa waxay gaartaa buurta la yidhaha shaan oo dolow agteeda ah ayay gaartaa laakiinse aniga socod baan ku marin magu deegaan nooma ahayn laakiinse buurtaan kor koron deganaynin dhul daaq xoolaad u badan ay ahayd hadda markii la martayna waa dhul macdan ah oo biyo leh wax haddana waa biyo la hadda webiga hadda laga baxay biyo ma laha ceelal ma jiraan arrada waa arra dhagax ah waa arra dhagax burahan khayraadka la duwan baa laga buurahan khayraadka laga helo waxaa weeyaan shinnida waa laga helaa geedka liila xagarka waa laga helaa malmalka waa laga helaa beeyada oo xanjad ah waa laga helaa ulbeereed weeye waa kan oo ninkii macnaha motoor haysta wax buu ka soo saaran karaa dhulka aad buu u fiican yahay khayraadkiisana waa badan yahay meel soo gurtana way kuleeyahay degmadun baa la geyn waa kaa waa la iibsadaa dhagaxaantan aad arkaysaan innaga caadi dhagax caadigeena ah asxaabta ceelashan ku jirta habeenkii qoda lama aha dhagax caadiya waxa uu leeyahay qiimo aad u sarreeya oo gudaha ceelka oo ilaa iyo 2-3 mitir gudaha ayaa gudaha loo galay oo ay ka soo jabiyeen tuuladan khayraad fara badan ayay leedahay waxaa laga helaa macdanta noocyadeeda kala bedelan sida macnaha waxaa weeye waxaa laga helaa dahabka khayraad kale beeraha ay leedahay oo dhinaca wax soo saarka beerahana aad bay hodan ugu tahay laakiin webigii waxaa maraya macnaha daawo ayaa maraya aad baa macnaha looga faa'iidaystaa beerahana waxaan muxuu yahay wadaa dahab wey dahab xageed ka soo qoday halka kan haye godkan marka imka carran arkayna carradana weli waa la farayaa waa la farayaa haye marka la soo saaro marka hore waa la qodaa waa la qodayaa haye wuu la qodayaa biraa lagu qodayaa wuu la soo saari bir iyo waxa lagu qodayaa burus baa la yidhaha haye wuu la soo saarayaa waatan markuu san la yeero kadib waxa lagu shubaa baashaas qaadina baashaad shiidaysa haye dahab ay soo saari marka kadib ay dahabka soo saaraysa wuu la dhaqayaa kaasaan ku qodanaa halkaa meeshaan macnaha markii ay ugu horreysay ceel dahab la ninka ka hela anigu koow ana ugu horreeyey dad badanna macnaha meesha waa iskugu timid markii ugu horreysayna waxaa lagu arkay meel malka ah oo xoolo ka gudbaan baa dahabka lagu arkay kabacdi raadka saa markii lasoo qaaday baan meeshaan nimid meeshaana ceel ka bilaab markii adigu waxay u nahayd 5 sano ka hor marka maalinteeda iyo waqtiga maanta la joogo dhulka asaga haystaan u joogno oo meeshaan macnaha waxa meesha lagu leeyahay wax looga cuno meeshaan ceelka igu horreeyay halkaan ka bilaab waa kaa waa midkaan weelka afka weyn oo arkayso dul taagan dahabka ugu horreysay intuu dhanaa dahabka markii ugu horreysay aan helo ilaa adigu dhowr boqoloo garan buu ahaa waa kaa maxaad dareentay marka waxaan dareemay inuu dhulka macnaha nacfi leeyahay waxay anfaca ay ku jiraan macnaha adkaysi wax walba waa samaynay dhulka sidaa marka dahabka wuu kala gogo'ayaa marba xoogo mitir markii xogo walba qodobo macnaha waa kaa go'aya haddana waa la qodayaa waa la helayaa haddana waa go'ay waa la qodaya waa la bartaa marka mutacalimiina lagu noqday wixii awoodda nadab qofka bini'aadamka uu qodi kara baan hadda qodinay baan hadda ka qodnaa maxaa noloshaada iska bedelay noloshayda waxaa iska bedelay wax weyn baa iska bedelay waxaas ilaahay macnaha kugu noolaysta dee macnaha baa lagu noolaadaa kulley hadda waan u jeedaa meesha deganahay buurahan dhexdooda ilaahay baa mahad leh
habeenku baa shaqatiga subaxdina dee qof aan dab shidinaynin macnaha qof hadduu shiday qof kale waa shidanaya ilaahay baa maal waxa ku nool oo dahabkaas xageed u iibgeysaan dahabka waxaan u iibgeynaa waddanka meesha waxaa la geeyaa ilaa orbadaas naga iliyay meelahaas baa la geeyaa waa ka waa gataan khayraadka ilaahay ku manaystay tuulada Bardacas ee ka mid ah ee ka tirsan deegaanka Soomaalida kuna taala degmada Dhakaasufto in badan waxaynu sheekooyin ku maqalnay inteena aan arag ceelasha laga qodo dahabka ama sida dahabka loo soo saaro waxa laga yaabaa inayna dad badan ay sheeko ahaan maqleen laakiin ayna arag qaabka ay tahay maanta laakiin waxa ay noo suruuday inaynu booqanno dadka deegaankeena oo iyagu dahabka ka qota buurahani gaaluun ee ku wareegsan guud ahaan gobolkan Daawa iyo gobolkan Liibaan u dhaxeeya wabiga Daawana uu hoos maro ceelkan aad aragtaan oo hadda ilaa iyo 2 mitir kor iga sareeyo oo hoos soo degnay ugu yaraan 5 ama 10 mitir ay uga hooseyso ayaa waxaanu hadda aan ku sugannahay bartankiisa waa ceelkii ugu horeeyay ee loo sahmiyay deegaankan tuuladan oo uu sahmiyo Cabdillaahi Salaad oo kamid ah odayaasha dahabka qoda ee deegaankan runtiina khayraad kala duwan oo dahab ayaa halkan ku jira hadii looga faa'iideysto si casriyana dadka deegaanka noloshooda iyo guud ahaan shacabka deegaankeena wax badan ayay ka taraysaa ka saarista saboolnimada iyo hoos dhimida shaqo la'aanta waxayna tani muujinaysaa khayraadka kala duwan ee deegaankani leeyahay sida ay tahay inaynu uga faa'iideysano weli inay bilow tahay laakiin loo baahan yahay in ka dawlad ahaan iyo ka shacab ahaanba aynu khayraadkeena iyo dhulkeena hoos ugu foroosano dawayaal haddii aad horey u aragtay mashiinka lagu shiido haruurka maanta waxa aynu taaganahay goob ay ridqayso oo ay kala saarayso dhagax iyo dahab waana makiinad loogu talagalay inay dhagaxa jabiso oo ay ka soo saarto dahabka makiinadan aragtaan waxay qayb ka tahay processka kala duwan ee dahab soo saarista ee lagu sameeyo ama lagu baaro halkan baa ku shaqaysanaa carrada ceerish marka laga soo qodo dhagaxa waa la yareeynaa burris waxaa lagu soo dhigaa iyo dhagax kale waa la jijibinaa marka la jijibiyo baashaan lagu shubayaa baashaan marka lagu shubo waa bacdan lagu rogo waa la cabaynaa kana baalkaasi aada mid uu yarayaa oo rooggaasi ayaa lagu dul shubaa sanduuqa lagu shubaa lagu shubaa baashani imise saacday ku jajabinaysaa dhagaxaan 40 daqiiqo ku jijibin intaa lagu shubayaa meesha marka lagu shubaa loorka halkan lagu dhameeyo maantaasa biyo loogu shubayaa taasaa roog lagu dhex garaaca midkaane hoose aa lagu dhex garaaca kan marka lagu garaaca xagga la geyna goobtaas la qaday oo madab baa la yidhaha madabkaas ayaa baabkaa lagu shubaa baabka iyo bahashaas baatida aa lagu dhaqaa gana soofigana inta hoose ku daadanaan daabkana baabka uu bukaanaya iyo baatida meeshaas lagu reeba halkaas bax la gelinaa gana geeladaa lala aadaya daawaya saartan halkan waa lagu dhaqayaa marka process fara badan soo maro baalka yartan waa dahab dhaqanka iyo dalxiisku waxa weeyaan waa inuu sameeyo isdhexgal iyo iskaashi saasi lamida inuu kor u qaado dhaqaalaha iyo fahamka bulshadaba in kor loo qaado inuu sameeyo shaqo abuur iyo dhisida kaabayaasha suuro gelinaya in dalxiisayaashu si dhow ay markaa goobaha dalxiiska ah ugu dalxiis tagaan dunidaynu ku noolnahay dadka ku nooli waxay si weyn u ilaaliyaan oo ay dhowraan isla markaana ay xafidaan goobaha taariikhda ee soo mara iyadoo taariikhdu ay noocyo badan tahay mar ay guul tahay iyo mar ay tahay guul darraba mar ay tahay gumaysi iyo mar ay tahay gumayste halkan aan ku sugannahay waa gobolka Liibaan degmada Boqol Maayo ayaanu waqti xaadirkan joognaa waxaan jecelnahay inaan la wadaagno taariikh
saldhig mid ka mid ah saldhigyada ugu waaweynaa ee Talyaanigu markii uu soo galay deegaankeena gaar ahaan dalkan Ethiopia markii uu soo galay gaar ahaan deegaankeena goobi uu ka sameystay ee uu saldhigga ka dhigtay ee uu ku shaqeynayay kamida waxa jirta wadooyin uu Talyaanigu sameeyay oo raadadkeedu hadda sii muuqdaan hadaba taariikhda dhismaha Talyaanigu halkan ka sameeyay oo waqtigan ku beegan xilli ku dhow 100 sano maxay ahayd ujeedada uu Talyaanigu halkan uga sameystay maxayse ka turjumaysaa imaanshiyaha Talyaaniga ee halkan iyo dhismahan uu sameeyay muxuu ka dhignaa السلام عليكم السلام عليكم سلام إلهي بهذه زلاج سلام أقول ما يكون كلنا أيه الجيش وين دبيس شيك يوقف حسن عمك هذا كلنا يا بقول ما وقت التلياني وويرك سوق إثيوبيا وقولي كان هذا قبيلة ماشى كدسي والجديد كان أو قري waxaan ka ogahay markuu ugu horeysa weerarka Itoobiya ku soo qaaday wuxuu ka soo galay dhinacan hadda aan joogno deegaankeena wuxuu ka soo galay doolow wuxuu qoray jid gacanta lagu qoro oo baraaran la yiraahdo uu watay oo hadda magaalada dusheeda mara ilaa Nigayla jidka baraara loo yaqaan jiray markaas weerarkii ayaa ka jiray iyo maartay dagaalkii ciidamada Itoobiya oo kor ka yimid oo dameero wata iyo farda ay u rabayeen oo qaloon cunaya iyo ciidamadiisa isdagaal jiray ya dagaalkaas jiray markuu ka guuleystay ayuu wuxuu bilaabay in jidka weyn oo hadda ilaa asbaraysaaya uu qoro marka jidkan hadda waan dhex taaganahay ayuu waqtiga ciidaas uu bilaabay gurigaana wuxuu ahaa saldhigga ugu weyn oo laga maamulo madaxda Talyaaniga ay fadhido kuwa jidka qoro injineerada iyo kuwa kale oo maartay ciidamadaba dushayda buurtan ka muuqatana waxa ku yeelay saldhig ciidan oo waardiyaha iyo ciidanba u fuulo ayaa jirtay taariikhda marka jidkan ama guriga la dhisay waxa weey weerarkii Itoobiya uu ku soo qaaday Talyaani ayaa maartay meeshii uu saldhigga ka dhigtay degay ayaa 100 mayl ka mid ahayd asigoo raacaya biyahan iyo magaaladan oo 90 iyo dhowr xuduud ku soo dhaaftay Soomaaliya oo maartay 93 kiiloomitir ay 100 mayl u jirto dagaalka Talyaani iyo Itoobiya isku qabsadeen Talyaani oo ka soo duulay digadiga hadda Soomaaliya loo yaqaan iyo Itoobiya oo ka soo duushay meega iyo meel yiraahda iyo la yiraahdo ka soo duushay oo farsi iyo baqala wata yaa waxay isku heleen banaanka malkaadiida la dhaho hadda qabaday qaxooti uu degay marka Talyaani dhulka waa qabsaday marka taas u qoysay ka bacdi adigoo waqtiga dambe wamarka gurigiisa waxa saay halkaas geedkaas weyn hoostiis waqtiga dambe oo Ingiriis imaaday dagaal ka dhacay Ingiriiska dhulka ka bixi askar badan oo Soomaali ah waa la qoray Ingiriis aa qoray huwa la siiyay askartii Soomaalida ahayd oo meel walba laga keenay wadanka Itoobiya jooga jirtay oo la qoray askartii xooggeeda ugu badnaa waxa bixi Soomaalida waaya askartii Soomaalida وإنجليزيا ومركا عطوا يوري تلياني واحد اسكيجي علي حل سيا هو اللي سي ومركا ما هذا محمد سياد بر اللي يقوله إيه هو كل سيا يا مدح ومركا ومدعابي مدح دي كوجري سياد بر صغير مدح دي كوجري ومركا عطوا هو هرنا سياد يعني اسكيجي علي تلياني إنجليزيا هو سي هو كل سواي dadka Soomaaliya waxa Talyaani dabar xabada ka geliyo wadanka ka bixi dadka asaas ahay markaad istaagto hareeraha ceelka waxaad dareemaysaa urta ciidda qoyan ee ceelasha laga soo saarayo dhawaqa biyaha la shubayo iyo indhaha geela oo degan marka la waraabiyo وانا موقع دبيعي halkan aad joognaa waa tuulada Bullaale oo ceelasha caanka ah ee geeyga Soomaalida oo dhan laga yaqaanay ceelashan waxay ku sugan yihiin ceelkan ay dhan weeyaan uu ka bedelan yahay ceelasha wadanka uu ka bedelan yahay ceelkan ay dhan weeyay isagoo dadku walba xoolo la imanayaan
macnaha ceelashan dhani weeye gar way leeyihiin oo meel xoolo leefaan oo ku jeelbaxaan way leeyihiin waxay leeyihiin biyo kalaana way leeyihiin oo dhana ah oo xoolaha u dawo ah marka xooluhu inta iyagaaba yimaado haddana dadku in xoolaha imanayaba meel geela saar ula saar riyaha salool ule faraska socod wanaag ule fardaha kolkaa la isticmaalaa loodana saax biyaa ule idaha seel ule ragga saaxad wanaag ule dee yacni dhulka macnaha meelo baaliyeeyo oo laga guuraa jira laakiin buntland lagama guuro haa wuxuu leeyahay wuxuuna dalku lahayn wuxuu leeyahay biyo macaan iyo biyo qadhaadh dhulka kale lagama heli karo biyo macaan iyo biyo qadhaadh biyo qaroor oo qadhaadh waa laga heli karaa biyo macaan waa laga heli karaa laakiin biyo macaan iyo biyo qadhaadh bulaalun baa laga helaa carro madow iyo carro casna bulaalun baa laga helaa dhulka kale ama waa carro madow ama waa carro cas garan laakiin bulaale afar togaa jaran la yidhaaha ee bulaale waxaa isku xigay waa isku jarjaran carrada madow iyo carrada cas carro madow iyo carro cas geedkuna waa saas oo kale kolka bulaale saasuu kaga fiicnaaday dhulka waqtiga qodan eega ee kow kolka hore waxaa la yidhaha gubadli laba xaarey gaas shire masayr ninka la yidhaha maxay ahayday dacar oo yeediyo dhoobaa leh ceelasha macnaha magaca leh maantaad raaci wuxuu odhan helayow 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 xarbigeedana adarow anun baa xidhan allah helayow xarbigeedana adarow anun baa xidhan waa waaweynta helayow xarbigeedana adarow anun baa xidhan adarow xalku xaragaba xaba tuugado iyo xoogan iyo xoogan kabsa isu dhulka inta waa ninkaas odhan ninka kaaba weliguu ka يا إبراهيم بذلك على بالنظر المشفع والروح إلى نحو الحبيب يقودني تنزع نفسي بسعي المضيع وتسلم وأزكى تحية على خير خلق الله Mulongool waxay ka mid tahay goobaha dadka ugu badan ee deegaanka Soomaalida ay booqdaan waa mid ka mid ah goobaha diimeed ee ugu caansan uguna qiimaha badan dhulka Soomaaliyeed gaar ahaan gudaha deegaanka Soomaalida waa xarun diini ah oo si qoto dheer uga dhex muuqata taariikhda dacwadda islaamka cilmiga diinta iyo barashada quraanka kariimka ah ee gobolka goobtani barakaysan waxay ku taallaa gobolka Jarar ee deegaanka Soomaalida meel u dhow magaalada Dhagaxbuur meeshan aan taaganahayna waa makaamkii Sheekh Cabdiraxmaan Zaylici waa kan inaga dambeeyo waa qubadii ka dambeeyana waa Sayid Maxamuud oo Cali Qablax weeyaan ka sii koreeyana waa Sheekh Cabdullaahi Qudbi ka sii koreeyana ina Sheekh Cabdullaahi Qudbi weeyo waa muriidkii sheekha dariiqada lagaga tagay weeyaan Sheekh Ismaan Sheekh Cabdullaahi Qudbi weey awliyada iyo jamacaadku ma yaro way fara badan tahay Jamal Nuur baa la yiraahdaa doodka Jamal Nuur baa la yiraahdaa waa jamalkii iftiimahayay weeyaan Sheekh Cabdiraxmaan Zaylici wuxuu ku dhashay meel kodla la yiraahdo oo Soomaaliya uu ka tagay oo Arab uu galay Arabu in badan joogay wax badan ku baranayay waxna ku bartay waxna uu ku baray marka halka kolkuu joogay ilaahay inuu karaamo siiyay oo ahaa yuu Sheekh Cabdisalaam Xaaji Jaamac aabihii baa isaguna arkay Sheekh Cabdisalaam Xaaji Jaamac baa deedna aabihii baa yidhi Sheekh Cabdisalaam aabihii Xaaji Jaamac yidhi xeray ninka inoo doona Carab jooga sheekhyada meeshan wax ku bartay Sheekh Cabdisalaam baa kamid Xaaji Abakar Yuusuf baa kamid Xaaji Cumar Gure baa kamid way fara badan yihiin Sheekh Subaxar aabihii baa kamid Soomaalida Sheekh Subaxar waa ka jigjigaan aabihii buu ahaa afartii macallin baa la yidhaah way fara badan yihiin ilaa saddex raqam bay isu daba yaaleen raqamka ugu yari 60 iyo waxbuu noqdaa arday
raqamkiiba ها أرض وكأوجر يسوي وحبره يكون معلم كبره هنا سجال يا سجاشم بويل أو أرضي guud ahaan deegaankeenu waxa uu leeyahay goobo taariikhda iyo diiwaanka ummadan geli karta oo dhan wanaagsan loo adeegsan karo halkan jiilka dambe ee reer Wadheer boqolaal sano kadib dhalinyaradu inay bartaan ceelashii ay ka cabi jireen awoodood ee ku noolaayeen xoolaha laga waraabin jiray inuu ku ugu muhiimsanaa uu ka mid yahay ceelkan Camuud kolka hore halkan waa ceelka la yiraahdo Camuud waa ceel taariikh dheer ku leh gabayadii hore ee maaragtay guba iyo Soomaalidu gabayada isticmaali jirtay ceel taariikh ku leh waa ceel biyihiisu ay nooc gaar ah biyaha adduunka oo dhan ka yihiin biyaha adduunka oo dhan nooc gaar ah ka yihiin kuwa cirka ka yimaada waa biyo macaan saabuunta marista ana waa lagu maydhaayo way ku kicisaa la nooc ma aha isagu waa dhanaan biyihiisu dhanaa ku jira waa dhane xagga dhadhanka markaad dhadhanso sida milixda kale dhanaan kaaga dhadhamaya markii aad ku maydhanaysa ama dharka ku maydhanaysana saabuunta marista ah ceel illa oo biyo hoose ceel ka soo baxay saabuunta mariska ah kolkaad mariso way kala go'aan way baqaysaa laakiin isagu ma baqayso sida biyaha xareedda cirka ka yimid ay saabuunta u kiciso bay u kicinaysaa oo ugu xumbaysaa nooca biyo horta waa saas macnaa ceelkani waxa uu ku caan noqday sida gaarka uu ugu sii caan noqday waxay ahayd gabaygii cali dhuux halqabsiga wuxuu ku keenayna waxay ahayd niman qaraabo ah oo qaraabadiisa ah oo de markii uu u yimaado si isku halayna uu wax walba ay uga helayay ayaa markaa meesha ka maqnaa marka hadday joogaan sidii ay hawshu u noqon lahayd heshiis u cabi lahayd ee isaga loo soo dhaweyn lahaa iyo sida markaa ku dhacday nimankii ugu yimid cabahay ayuu tabashadeed buu markaa ayuu hadalka yaa ka keenay cali dhuux marka arrintu waxa weeye sidaas ay hawshu ku bilaabatay marka taariikh ahaan ceelkani waxa uu ku caan baxay ceesha kale biyaha intuu odaygu ku daray anigu hadda hore uma ogeyn oo ah biyihiisu waa dhanaan waa la isla yaqaanay laakiin inay saabuuntu ku baxdo asagoo biyihiisu dhanaan yihiin macnaa arrintaasna hadda odayga ay ugu daray taariikhdan hore uga hayay ka mid ma ahayn waa waxaan hadda odayga ka faa'iideysanay weey marka haddii la sii wadwado wanaag badan iyo taariikho badan baa ka soo baxaya marka taariikhda in la nooleeyo oo dib loo dabagalo oo qoraallo laga sameeyo oo aad bay u muhiim tahay jiilba jiil dhibo taariikh ummaddu ay soo martay xaalad ay ka soo gudubtay واقعي xilligaasi jiray oo ummadda kale ay isku soo gudbinaysay ayaa ceelkani ka dhacday waa gabayga guba ee dheer ee taariikhda dheer leh ee reeraha badan ay soo galayaan ama qabaylada laga hadlayo kan magaciisa la sheeg ceelka qarandi baa la qarandi ha dixda qarandi beeray Camuud loo dardari waa dawadeedu waa jeerinley uga dul geeraar meeshaas uu mariyay horta uu sidan hadda noqdo uu jilaalku gala uu maartay biyuhu intii isugu soo haraan de waxani waa milix milixda ku dhacday milixda ku dhacday biisa wada milix noqday wixii cabaa marka way ku dhimanayaan oo de milixda iskama xajin karaan milixda ka tan roonaanaysa marka waa gaafo waa aad maartay khatar oo qaali ah waliba ceelkan waxaa la yiraahdaa jiiliye ceel عاش
ka dhigo saldhigga uu meeshan ka amaamudi doono ee uu kula dagaalami doono ummadihii gumaysiga ahaa inuu ka xoroobo uu markaa go'aankiisu ahaa meeshuu degay weeyaan halkan waxa weeye kursigii uu ku fadhiisan jiray ee dadka uu ugu khudbayn jiray ee xarunta dadka maaragtay ciidamada qudhooda marka uu maaragtay u khudbaynayo uu yimaado waxay ahayd dhulka uu fardaha qaar buu meesha uu ku leeliyi jiray inta badan inabargu dhulka joog ciidankuna dhul badan buu markaa deganaa inta dhir aheed aragto mid aana ma aan geed faras ku xidhnayn ama aan ciidan fadhiyin ma lahayn laakiin halkani dee xafiiskiisa ay ahayd aynu imika taagannahay meeshuu ku shaqaynaya bay ahayd halkan aynu taagannahay wuxuu yidhi taariikhdu markii ay ahayd 1915 ayuu halka yidhi halkan oo aynu tegi doonno salaxyada ku yaalla waxay ahayn kuwa dharka ku maydhan jireen dharka ay ku maydhan jireen marka baaldi iyo wax lagu maydho iyo midna maynaan lahayn dhagxan weelahoo waxay lahayd meeshan lagu maydho dharka oo dharka ku maydhan jireen waxaa kaloo meesha yaalla oo taariikh ah dhulkan meel halkan imika kolka laga bilaabo dhir baa ku taalla qurac baa ku taalla dhulkan wuxuu mudan yahay in loo qoro xus dhulka dayr lagu xidho lagu sameeyo xusuus qor taariikho badan hooyadii halkanay ku dhimatay carre cali meeshan la yidhaah sayidka hooyadii carraa hooyadii la odhanayey waxaa loogu magac daray meesha ay ku dhimatay daawadayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenna aynu ku dalxiisayno gobaha taariikhda weyn deegaanka ku leh halkan aan ku sugannahay waa garawo waa mid ka mid a dhacdooyinka caanka ka ah geeyiga soomaalida gaar ahaan dadka dhaqda geela in badanna ay maqashin sheekadeeda waa hashii markii ay dhimatay ninkii lahaa oo shiil la dhihi jiray inuu ka soo celiyo oo soo qaado ilmaha usoo xambaaran dama isagoo ka dhaliyaa loo tegay in ay tiracdo mooye la eryi maayo yiri kolkii ay tiracdayn baa la soo eriyay 20 nin iyagay maalayeen baa la yiri
aanu dalxiis muujin karaa